markaas ma sha Allah waad soo iibsanaysaa aayadii quraanka la kuu sheegi doona ad ku afuufanaysid oo marka isticmaalaysid habkii loo isticmaalay wixii oo dhan nuur ala nuur boqolkiiba boqol tijaabiya walaalayaal imisa walaalood iyo maanta ilaashkooda u socda imisa ilaash buu ilaahay u barakeeyay imisa ilaash buu ilaahay subxaana tacaala mubaarak ka dhigay oo caafimaaday gabdho xanuunsanayay inama xanuunsanayay hooyooyin xanuunsanayay hooyo waxaan xasuustaa ikhwaani fillah guriga dhexdiisa ayuu jinka ka soo raacay ka warrama nacam saddex jin baan nahay bay dhahayn guriga dhexdiisaan ka soo raacnay habarta oo meelaha fiiqfiiqaysa walaalayaal markiiba lugahan ka galnay bay dhahayn calooshaan ka galnay neeftaan ku dhejinay habeenka islaanta neeftaa ku dhegsan wayse ma qaadan karto hadday qaadato iyadoo rafaad hay dhabarkaasaa kala go'an hay dhinacaas kolba dhinac yaa xanuunaya kolba lug baa xanuunaysa kolba beer baa xanuunaya madax xanuun fikiraad walaalayaal may maqlaysaan allahuma salli wabaarak calaa maxamed yacni dhibaato jinku markuu ku imanayo cadowtinimuu kugu imanaya kuguma imanaya saaxiib iyo waa wanaag wuxuu rabaa khasaarahaaguu rabaa ina ashayطaanu lakum caduwa faاtakhiduu caduwa soo ilaahay qur'aanka kuma sheegin isagana wuxuu ku leeyahay insiga cadowba ii yahay cadow waa inaan ula dhaqmaa bal ka warrama halkaasi arrinka taaganta walaalayaal ilaahay subxaana allah tacaala waxaan ka baryaynaa nas'alu allah asalaama inuu ilaahay carruurteenna dumarkeenna gabdhaheenna walaalaheenna uu noo caafiyo wixii dhibaya jinni wixii dhibaya sixir wixii dhibaya waxaad ogaataa shaydaan maarid shaydaanka dulduulo waxaas oo dhan duruus baan ka soo hadalnay videoga dib ugu laaban kartaan ood dhegaysan kartaan walaalayaal haddaan u soo noqdo gabadhaa yare Anisa iyo kuwa fara badan oo ka horreeyey xanuunku wuxuu fiican yahay walaal markay yar yihiin in la gaadho Anisa qisada bilowgeedii baan ka soo hadlay gabadh yaro 7-8 sano weeyaan da'deeda waa curad hooyayay u curatay waa la soo sixray sixir loo soo waday islaanta iyo ilmaha loo soo sameeyay inay xanuunsato in dhagaha ee beesho inay nacas ee noqoto inay iska qaqeeliso inta yar kaligeed la mashquuliyo bal ka warrama cadowga intaa leg walaalayaal cadowga intaa leg bini aadam oo maanta muslim isku sheegayo oo ilmo yar soo sixraya ka warrama cadowtinimo u qaaday qof weyn ayuu ilmihiisii sixraya ka waran soo lama socotaan inaan videogii shalaytoole ka hadlay gabadh muslimada oo 20 jira inay saaxiibadeed ee sixirtay walaalayaal videogay ku dhex jirta qisooyinkii shanta ee aan shalaytoole walaalaha uga sheekeynayay nacam videogayga ku laabtay insha allah oo dhegaysta oo ka faa'iidaysta oo sheergareeya may maqashaan hay dhaha ilaahay hani barakeeye ilaah u dambi dhaafkii soo qoro ma sha allah ilaah u dambi dhaafkii nabiga ku salli allahumma salli wa barak ala muhammad ilaah u dambi dhaafkii allahu akbar soo qoro ku soo qoro facebooka ku soo qoro waxaad ogaataa youtube-ka ma sha allah satuktubu shahaadadkum shahaadadiina waa la qoranayaa ma sha allah waa la qoranayaa aad iyo aad yaan igu ducaynayaa markaad sheergaraynaysaan videoga khayrka markaad maqashaan videogan aragtaan doctor ruqya aad u dirtaan walaalaha aad u dirtaan asxaabta aad facebookiina ku sheergaraysaan aad youtube-ka ku dhex sheergaraysaan aad ila soo hadashaan oo aad tiraahan waan kuu soo duceynay meelahaas qaarkood baan ka arkaa jaraa'idka jazaaka allah khayr doctor الرقية ما شاء الله walaalkeena jamaal nacam aad iyo aad ayay laabta u faraxdaa ما شاء الله marka walaalayaal Anisa 7 sano 8 sano weeyaan da'deeda ilmahaas way isku maqnayd ilmahaas way qeyli jirtay waa xanuunkan ay gaalada ay dhahaan autismka jinni baa afuufay walaalayaal ilaashkeedii baan siinay ilaash waxa uu socday 3 week Allahu akbar
saddex wiig oo qur'aana saddex wiig waan u tegay qur'aankan ku soo akhriyey waxaad ogaatay dawooyinkii baan siiyey reerkii baan idhi sidaa ula dhaqma sidaa qur'aanka ha u dhegaysato waxaan siiyey ruqyo ay dhegaysato aan aniga duubay ayaa dhagaha loo gelinayay maasha allah way dadaalaysa ilaahay baa u fududeeyey walaalayaal tii yareed waxaad ogaataa faraanti bay soo tuftay ka warramo ha calooshan baa cabursaneed musqusha may geli jirin way qeeli jirtay ha markuu ilaahay uu rabo ayuu wax fududeeyaa samada iyaa shalay toole noo furneed way soo matagtay way soo xunqaacday wixii uu ka soo baxay walaalayaal bishan barakaysan waa bil aad u khayr badan walaalayaal ka faa'iidaysta ha ka faa'iidaysta ilaashka qur'aanka isa saara telefonkayga waa nii furan yahay haddaad u baahantihiin talooyin haddaad u baahantihiin mucaawano qur'aanka waa ni saaraynaa in sha allah halkaasaan igu ducaynaynaa nacam kii maalin u baahdo kii 2 cisho u baahdo kii 3 cisho u baahdo ha marka xanuunkan autismka waa dabeel sheedaana weeyaan maanta waxaad nasiib ku yeelateen reer yurub reer maraykanka canada cilaash waxaa laga furay bartamaha adduunka yurub netherland noo kaalaya qur'aanka la ku saari maanta qofka ka soo baxaya maraykanka qofka ka soo baxaya canada haddii ugu badato tigirku waa $300-400 weeyaan sax ha $300-400 weeyaan guri baan kuu kareenaynaa wifigii internetkii cuntadii jikadii saaloonkii fadhigii tvgii wixoo dhan leh waxaad ogaataa wiigaagaad iska fadhiisan kulli waxaa kaaga baxaya hadday ugu yar tahay $1,000 ma dhanno ka waran maasha allah ha adigoo ilmahaagii iyo waxaad ogaataa caafimaadkaagii iyo cilaashkaagii aad qaadatay waxaan sheegayaa kirada meesha hoteelka fadhiga waxaa jira guryo aad u qurux badan aan walaalaha u karaynay oo waxaad ogaataa baashaalkii iskale oo maaragtay jiifkii iskale oo jardinkii iskale oo magaaladii aad tegaysid oo wax soo adeegsanaysid sida adigoo gurigaaga oo dhex joogtid oo kale hadda hotel maahayn waa guryo caadi weeyaan maasha allah ha halka ka buuxan daf buux ma aqaan anu dhulkiina maaragtay canada iyo USA annagu halkan daf buux maasha allah ha waad iska baashaalaysa inta qur'aankaaga iyo cilaashkaagana waa kuu socda ma carruurtan baa iskale barnaamijka may qof kastoo weyn qof kastoo u baahan cilaash ninku waa iman karaa dumarku waa iman karaan gabdhuhu way soo dhoofi karaan cilaashkooga halkaas ayaa lagu siinaya insha allah dumar bay la seexanayaan gabdho iyo la seexanayaan haween ha raggana ragga bay la seexanayaan nacam haddii maaragtay la helay iminka waxaa jirta muddo ka hor dhowr qof baa nooga yimid maaragtay dibadaha maasha allah waxaa reer ay isku heleen 6 gabdhood halkana waxaa seexanayay 3 nin maasha allah 3 nin oo labada cilaashkoogana way qaadanayeen maasha allah ha 2 saal 2 qol 2 meel ayaan u kala saaray oo samaacadihii halkaa ugu xidhay raggiina halkan dumarkiina halkan oo qur'aankoogii qaadanayn oo saliidoodii iyo biyahoogii iyo taxliishoodii qaadanayn ka warama hada nuur rabbi weeyaan hada min fadl rabbi weeyaan waa waxuu ilaahayna siiyey sax walaalayaal nacam xaggee yurub dhexdiisa qaarka ka imanaya talyaaniga qaarka canada ka imanayo qaarka ka imanayo australia maasha allah kadibna waxay iska tegayeen dalxiis 2 cisho ugu dambeysay magaalada iska soo daawadeen qaar waxaaba jirta oo gaadhay waxaad ogaataa ilaa faransiiska idhaadeen intaan joogno faransiiskan kasoo faa'iidaysanna baariis iyo waxaas iska soo daawadeen dalxiis maasha allah ha marka axbaabi fillah ikhwaani fi lcaqiida barnaamijka onlineka kaasi weeyaan kii guriga waan ka sheekeeyey oo aad noo imanaysay kii adiga gurigaaga dhexdiisana waan ku fahamsiiyey oo waxaad ogaataa aad qur'aanka loo kugu akhrinaya insha allah inama alacmaal binniyaat acmaashoo dhan waa niyadda weeyaan waa inaad waxay niyeysataa weeyaan waa wixii inaad adiga niyeysataa weeyaan in ilaahay aad aamintaa inuu waxaan qur'aankan iyo cilaashkan uu kugu daweynayo ogaada walaalayaal arrin baa nii sheegaya nacam وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سو دواada walaalaha gadaalka yimid xayaakum الله وبياكم وبارك الله فيكم mid ayaa nii sheegaya jinku waa taqaana waa cadowgeena waa shaydaan
marka wuxuu samaynayaa wuu kaa cabsiinaya shaqadiisa oo dhan waa cabsiis waa afuuf waa waswaas alkhannaas qofka weyn iyo qofka yar haa walaalayaal cabsida walaalo badan baa ii sheegay markay helaan raaqi markay helaan fursad qof qur'aan saaro ee awoodaan inuu maaragtay halkaa ay tegaan cabsi buu geliyaa ها إنما رب موقت إنه قرآن كله صاروا قفكن دمر كم قفكن نينكا صح هدي القرآن كله صار يسقوا جبنا يوخسوا عنا يمشي نين جيت أو 5 سنة 8 سنة 7 سنة قري سود أو قردرو كسود دقي سيدي موريانتي مارتي قرياش أود عين حمر ميو أقلنا يا إنه قري قال لك صاروا شوابتوا مايا jinkuna waa sidaas cadowguna waa sidaas mar rabo inuu horo weesha uga baxo ilmihii iyo qofkii ayuu waswaasinaya moogti u odhanaya may hala hadlin sheekha ha u tegin ha arrimo kale iyo wax kale ayuu ku afuufaya waxa arrinka caddeynaya ikhwaani fillah dhowr shay oo aan iga sheegi doonaa oo walaalaha qaarkood isku garan doonaan sax gabadh waxaa jirta waxay ku leedahay markaan ku maqlay sheekh oo aan niyeysadayna qur'aanka iyo saartid sidii wax maartay maskaxdeeda ka saaray nambarkaagii iyo beritolan ku waci iyo saan dabaan ku waci waxay ku qaadatay ikhwaani fillah dhowr sano ka waran la hawla wala quwwata illa billah gabadh waxaa jirta oo internetkii ka lumiyeyba ha internetkii ka xumeeyey gabadh waxaa jirta telefonkii ayuu ka gubay walaalayaal wal iyaadu billah waxay tir sheekh markaan sidaa ku soo helay whatsappkii aan kala soo xiriiray telefoonku ma dhigay waxaan soo noqday isagoo bul uu gubtay shaydaan cadow ha waa daciif laakiin khasaaruka ayuu ku gaarsiinaya ha dad waxaa jirta ikhwaani fillah wuxuu kaala dagaalamaya beesadii ha maxaad ilaashku u gali maxaad u dhoofi maxaad sadaqada ula bixi sax ha maxaa waaye moogtay ayuu ku odhanaya حتى واحد دقيقة كرت إنه أيامها يعني dhibaatadii iyo rafaadkii iyo culayska kugu hayay in waxaad ogaataa uu ka daayo sad adiga maskaxdaada u gashatid wallahi waan caafimaad ka waran ha nacam marka waa shidaari weeyaan oo waxaad ogaataa ikhwaani fillah iska ilaaliya xabsi buu dadka geliyaa sheekhii waad arkaysaa numberkiisii online waad u qoraysaa assalaamu calaykum wacalaykum assalaam buu kuu soo qoray offline baad noqonaysaa ood ordaysaaba war aawe gabadhii ila hadlaysa waxaan dhahaan ilaahay maaragtay ha xifdiyo waan gartaa inuu wixii qofkii u diidayo shaydaankii la dagaalamayo haa ama gabadhii qur'aanka la fadhiisan lahayd maalinta ilaalin lahayd oo haddii loo baahdo ayuu diidayaa oo waxaad ogaataa maaragtay tiibuu ku adkeynayaa may maqashaan qiseer waxaan iga sheekayn cajiiba insha allah oo ruqyada maaragtay ku soo aruurto oo dhowr sano ka hor gabadh maasha allah markii dambe ilaahay caafimaadka siiyey aayo soo ma taqaanaan aayadeed hadda weli maahin waxaad ogaataa tii aabbaheed uu qabay maahine awoogeed baa qabay tan subxaana allah ha gabadhan awoogeed baa qabay dee maxaan leenahay ayeeya maan leenahay aayo miyaan leenahay calaa kulli xaaga habartaas ayaa ikhwaani fillah gabadhan sixirtay ka warrama gabadhu waxay reer norway gabadh soomaaliyeed maa sha allah ha oo da'yar ha 18 jir ha way dhici jirtay way suuxi jirtay tacliinta may baran jirin waxba cabsi habeenkii guriga ha finan jirkeyga dhidid wax dhex socdo maskaxda waswaas alkhannaas aniga ila soo xiriirtay ikhwaani fillah dhibaatooyinka way fara badan yihiin carab fara badan neerfaso fara badan inakaad la sheekaysatid baa laguu urinayo gabdhaha qaarkood ma gursadaan gabdhaha qaarkood waxaad ogaataa jinni caashiq baa haya oo isagaabaa qababa subxaana allah walciyaadu billah nacam hooyooyin fara badan way ka cabanayo maasha allah baan hay waan qurux badanahay waan fiicanahay maasha allah waxba igama maqno inamadii way ila sheekaysanayaan sidaan u joogno sheekadeena way xumaanaysaa way kaa baan leen hurdada ka toos waxbaa jira il baa kaa buuxda xaasid baa kaa buuxa jinni alcaashiq
yaa ku dhibaya ha waxba waa la kuu urinaya inankaa kula sheekaysanaya iyaa waxaad ogaataa laga cabsiiyey ha waa laga cabsiiyey moogta jinkaa ka cabsiiyey ha gabadh waxaan xasuustaa walaalayaal oo yurubtaa joogtay waxay ku soo gaadhay 35 sano iyadii aan gursan ka warrama gabadh maskiina ilaa yaa xifdiyee 35 sano iyo berigaa ku soo gaadhay aan gursan way dadaalaysay qur'aan bay saaraysay ilaahay bay baryaysay maasha allah ducooyinka khayrka jinnigaasaa ku dhegsanaa walaalayaal inanka la sheekaysataba kaasaa ka burburinayay ka warrama qur'aankii bay ruqyadii baan saaray dhowr cishaan la dadaalay wixii ka xumaa oo dhan baan u sheegay wixii wanaag oo dhan baan u sheegay qur'aankii baan saarnay uga dhex qeeliyey magacaa zamiir jinnil waxaan ahay jinnil caashiq walciyaadu billaah cadow ilaahay zamiir ما مقشن مقع يا إخواني في الله زمير زوزل بنيامين ها مقع أساسي أردن إيه وطن ولا عليا كل جو أنت بدن ومقع يهودية ها مقع يهودية إيه وطن إخواني في الله ها بني إسرائيل مقرتين يك أبدين ولا عليا ها يك أبدين كبردي وكده خيري أنا قاعد شعل بوري بدن كسر راعي وان شعلها هاي كبرنا ما قاعد نيشة معي موقت الله بهنو أنا شعل بوري أو واحد قاعد أنت سنود أردن أن لدى قالمي مسكين ويا مسكين ها مسكين مرمرك قاركود وحن لها ولا ليال قبلهن الصومالية ها أو مارتي قميسك كل عي أو جورك مارتي كو أتكادي oo maartay single mother ka meelaha la wareegayo geedkaas dhibaya ka warrama ha jinka maarid jinka caashiqa yaa wad dhibaya oo maskaxdii maartay ka lumiyo oo khayrkii iyo nicmooyinkii ka xixidhay walaalayaal ka warrama waan u duceeyaa maxaan dhahay ikhwaani fillah ilaahu xifdi ilaahu aniga xifdi ilaahu gabdheena xifdi ilaahu muslimaadka xifdi nacam hablaha Soomaaliyeed ummahin walaalayaal ilaaha xifdiye may maqlaysaan muslim oo dhan weeyaan aniga dhowr luqadood baan ikhwaani fillah aan cilaajka ku sameeyay inaad aragteen baan meeya fiidiyoogayga sax nabiga ku saliya allahumma salli wa barik ala muhammad dhowr luqadood baan fiidiyo ayaa ku sameeyay ruqyada haday carabiga tahay haday tahay luqadda faransiiska ma sha Allah haday tahay luqadda ingiriiska haday tahay wadanka Netherland Dutch ha marka yaani walaalaha kalena waa la socda xaaladooda moogtay saasa looga cabanaya ha jinka dulduulo jinka maaridka gabdhihii caashiqa maartay dhameeyay koodhe oo cabsi galiyay ma gursan kartid buu leeyahay ka warrama hooyoy habariyay may maqlaysaa maamo may maqlaysaa adaan kula hadlay maamo haa adiga aan kula hadlaya maamo gabadhu maxay u gursan laaday 20 jir weeyaan 30 jir weeyaan gurigay kuu fadhidaay quraanka saar anaa ku yidhi moogta ها قرآن كسار ماما رقية السار كودي جني مارد كسار كوركيغو كجرا هبينك وادبايا غوريغا قرآن كبوفي ها رقية السار فرها لك خيرو بيا علاجك الله سمي غبدا way gursanaysa نعم وحتى عدينا يا walaalyaal walaalihi oo maartay dhibay jinka haday yihiin Marookaan haday yihiin Soomaali haday yihiin Suudaani ha waxaan si fiican u xasuustaa laba gabdhood oo Eritrean oo muslim ma sha Allah ilaa yaa xifdiyo muslimiinta aamiin dhaha walaal laba gabdhood oo Eritrean ha oo waxaad ogaatay walaalayaal guurka sida uga adkaaday hooyad maxay sameysay way la soo xiriirtoon ha way la soo xiriirtoon carabiga si fiican u kasayn ma sha Allah waxaad tiri gabdhaha quraan isaar waan ka shikiyay moogta ha tacliin iyo jaamacad bay wadaan ha banaankaas McDonald's ka soo cunaan ha midna waxaad ogaataa burkhi king bay jeceshahay midna McDonald's bay jeceshahay labadooda waan ka kari waayay ka warrama ha waan ka shikiyay gabdhahan xijaab male waxba ma jiro waxmaani fillah beerta lagu jira way soo fariisay quraankii baan saarnay way dhaceen labadoodiba ha
ويدعي تنادينا بودعي تنادينا بودعي فدقي ولا ليال سبحان الله إله وينسي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ما شاء الله. وحكى هذا الإخواني في الجن عاشق يهودي أنك الله وضع حيسني الدحين ها يكو يربى صوغلنا اللي بيتو من جركوغي ها وسواس خناس ها وحن صلاة دي بان وديدني قرآن أخرس كي بان وديدني حجاب كي بان وديدني جلابيب كي بان وديدني ها وحن وديدني مارت إني مساجد كتغان إني دعيستان إني وحبريان حتى صونك يا كوادكا كورما بل إيق قبل قان قاري ولا ليال oo soonku ku adagay ka warama adiga waxba jira moogti oo guriga maartay sigaar kugu cabayo si wax u jiraan cadowgaas haystay ikhwaani fillah quraanki bay saareen labadooda waa dhaceen way isdhiibeen alxamdulillah waxaan u qoray ilaaj waxaan u qoray 2 week ee dhageystaan quraanka dawooyinka saliidii wixii oo dhan haddaan ka hadli doonaa saliidii wixii oo dhan waxaad ogaata sidii ayuu jinki ku dhaafay waxaan siiyay xijaab saar guriga oo dhan laga xijaabo jinka iyo isha iyo sixirka iyo cadowgaas walaalayaal gabdhihii waa nadiif waxaad ogaata labadoodii way gursadeen dhowr bilood kadib allahu akbar ilaahay baa mahadda iskale ilaahay baa nicmadaana siiyey muxuu ilaahay yidhi qur'aanka ku tadabura qur'aanka dhegaysta قرآن كان وانا حريص ويان إخواني في الله مين سيداهين ها قرآن كان وحال قصور دادعي ولا ليال إن شاء الله إلهي نقوة عافية إله نقوة عافي قرآنك إله سنة نقوة عافي إله كتاب كاغا نقوة عافي إله بريادة نقوة عافي إله سجود نقوة عافي إله واحد وقاتا نقوة حفدي وحي نربي أوردن آمين دها ولا ليال اللهم نفس كرب المكروبين واشفي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم نفس كرب المكروبين واشفي مرضانا ومرضى المسلمين وفك السحر المسحورين وفك السحر المسحورين وفك السحر المسحورين وفك السحر المسحورين اللهم ابطل سحرهم اللهم ابطل سحرهم اللهم شافيهم من مرضهم اللهم شافيهم من مرضهم اللهم شافيهم من مرضهم إله سحرك وكفر إله سحرك وجبي إله عينتو ذا جبي إله وحي نبي جبي يا رب العالمين إله عفمات سي حنونكو قردن كسي عفمات يا رب العالمين إله عفمات وقبدل إله عفمات وقبدل يا رب العالمين ولا ريال واحد يقدم الدحدان لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين تدبجر ولا ليال وين العاديستان وين أفكا كوهيستان وين عروتي نبرتان وين قبليه نبرتان لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وحي علاس عرنكو هاي إلهي وكاقاضية دعاء برتا ولا ليال أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيني ومركز أديك اسكو آخرين سيد مركز ويلكا قاد كو آخرين سيدنا واحد لدي أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك تدبجر يا رسولك صلى الله عليه وسلم يا نبري ولا ليا مركز قبل هذا كو آخرين سيد ويحنوسانيسا سنها يا دبيا دبركا دبيا حنوسانيسا ماذا حنونيا مرغا كو دعدي واد ويارسا سليد باد وسمانيسا إن شاء الله سليد الزيتون أو قرآن كو أفتوفتي دعاء باد كو آخرينيسا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك تدبجر يا هكا يرين هكا بدنين إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم احرق كل شيطان عفريت في هذا الجسم وهذا الجسد إله عفريت كستو شيطانا أو ندبيو أم صبيان أردن أو ندبيسو habarta jinka oo nadhibayso abeeso oo nadhibayso wixii oo dhan oo xun oo nadhibaya walaaleen isha sixirka jinka waxaas oo dhan nadhibaya ikhwaani fillah xanuun oo dhan nadhibay xanuun
حاسد الربيو إلهي وحن كبرينا سبحان الله تعالى إنه كركينا كقاضو آمين لها ولا عليا آمين. اللهم احرق كل عين خبيثة وأعين حاسدة في هذا الجسد وهذا الجسم يا رب العالمين. اللهم اشفيهم من هذا المرض وكل الأمراض يا رحيم يا رحمن يا الله يا الله. إلهنا اشفينا واشفي مرضانا ومرضى المسلمين. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيم ملكا عظيم ملكا عظيم ملكا عظيم ملكا عظيم ملكا عظيم ملكا عظيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيم ملكا عظيم ملكا عظيم ملكا عظيم. الله أكبر. ربيو وحنكو بريا وحنكو ويديسنيا إلهو وحنكو بريا إلهو وحنكو بريا أنيقي ولا لهي نغا حنوسن ونغا دباتيسن ونغا مروغيسن وشيطانكو نغا بديي وعدوغو نلا دغالمايو وجينكو نلا دغالمايو وwaxaad ogaata ishii nala dagaalamayso ee xaasidiintii nagu farabalteen oo sixiro maarta la adeegsanayo inaad ilaahowna caafisid yaa rabbil caalamiin. allahumma ishfina wa ishfi mardana wa marda almuslimiin. آية بان كتورنا إخواني في الله كجبنا إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا ولن نشرك بربنا أحدا ولن نشرك بربنا أحدا. الله أكبر الله أكبر. إله دبينا داف إله دبينا داف يا رب العالمين. إله مراد كنا سهل يا أرحم الراحمين. وحيد دين له كله إله دين تكجود وحيد باتيسن إله دفت كقاد وفرحة قبدل وحي جور رب إله جور كأفضل ذا وحي عرور هيست إله عرور تو هانوني وعرور صالحين النصي وصلاة بدن ودعاء بدن ووالد كوجا مقلس يا رب العالمين. وحي حنوصان إل جن سحر حمان علاج أوردن صارنا إله واحد وقات عفمات سي. إله شوادين تنربيسو سحرة إله نجا قبو سحرة نجا قبو يا رب العالمين. شركوك يا رب العالمين. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا ساخرين وانقلبوا ساخرين وانقلبوا ساخرين وانقلبوا ساخرين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين قالوا آمنا برب العالمين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تألوا علي وأتوني مسلمين ألا تألوا علي وأتوني مسلمين. وتعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله إن الله شديد العقاب إن الله شديد العقاب. الله أكبر الله أكبر. إله دنبينا داف إله مرادكنا سهل
إله مرادكنا سهل يا رب العالمين. أحبابي في الله، إخواني في العقيدة، إن شاء الله ووضع حريرنا وحان أسوى جيساني ولا لها يوتيوب إن شاء الله سبسكرايب كسمية إذا عدى أصحابته أدرة إن شاء الله كالي رقية الراتسدة إن شاء الله رقيينك يدوينك يسكد دوية إن شاء الله. الحمد لله. هذا وحان نيشي قدونا إن شاء الله ولا ليال دوينك يان إن شاء الله هلك نيسا قبندونا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سليدي واتن ولا ليال ماركسان سليدي واتن وكود ديار يديو قرآن يا إن شاء الله كسيننا أديجي ريركا أردن يا عروتا يوحي كاحن سنة سليد بالله سمعنا يا قرآن إن شاء الله سليد الزيتون ولايف أولي سؤالك ميسان ما شاء الله ومت وايهي وحا إن شاء الله بيه تحليشة وكون ولا ليال بيه تحليل يا الله سمعنا يا كفلا وإلمه عبيا إلمها حنوس كاحنوسن وتتيز منك لويق إلا بل أيو قادنا يا إن شاء الله سان هرو شيغنا ولا ليال عفماتكو قار وسو غورتا قارنا هرو سو بخاتاس إلهي بي كخرنت إن شاء الله أديق رقيدا سارو وددال با لوغا باهي إن شاء الله أنت كلنا إلهي وداف صح. نعم وايهي بيه سليدي وان كهد لإخواني في الله بارك الله فيكم جزاكم الله خير. هل كان وحن كو هيا هدو إلهي إدمو دووينكي كلا وكون ولا ليال هل كان يكون حجران علامه يوحي لوشي دي المها إن شاء الله دووينكي هل كان كو هيا إن شاء الله واني فهمسين دونا بارك الله فيكم جزاكم الله خير ومدويان هذا وحن نيسو قبانا يا دووينكي كلا إن شاء الله وحي رئيس صبرا بارك الله فيكم. مقشان ما شاء الله. دوين كلا وكون إخواني في الله هل كان يكجران باكددن بيكجران إن شاء الله وصدح دوويان ما شاء الله إخواني في الله وكون بارك الله فيكم. هل كان وكون مارت علينا وكلا يدقوا سمعنا إنسان إن شاء الله ولكم فهم سيني وحا سعودان وحي لا سعودان إلاش كلا سعودان إلاش كلا سعودان لكن وح كستوحا كوين ولا ليال قرآن saarka quraanka lagu saarayo waxan ku jiro ama dabeeshan la gubayo shaydaanka laga saarayo ama haduu shaydaan ku jiro ama wax kale uu yahay sixir la gubayo insha Allah oo ilmaha loo sameeyay xijaab insha Allah. barakallahu fiikum jazakum Allah khair. ahbabi ikhwani fi al-aqeeda insha Allah waqtigeeni waa soo yaraaday haduu ilaahay idmo waxaan sameeynaa waa taqaanaan meesha aad igala soo xiriireysaan ducooyinkiina hanaga iloobina insha Allah ducooyinkiina hanaga iloobina أصحابته أدرى